madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaan oo muddo dhowr maalmood safar isaga iyo qoyskiisa u gaar ugu maqnaa magaalada Marseyda Berbera ayaa si nabadgelyo ugu soo laabtay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa kadib markii uu soo dhameystay safarkaasi u gaarka ahaa mudane Axmed Maxamed Silaan iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay inta u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa ilaa Berbera waxaana si mug looga qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa kuwaas wadada hareeraheeda la taagnaa sacab salaan iyo erayo ay ka mid ahaayeen soo dhawow madaxweyne kana markhaati kacay sida ay shacabku ugu helayeen madaxweyne Silaan iyo xukuumadda uu hogaamiyo dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo u kala dhin soo dhaweynta madaxweynaha ayaa taagnaa wadada dhinaceeda ilaa madaxweynuhu ka soo galaya aqalkiisa madaxtooyada ee caasimadda Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland ayaa intii uu joogay magaalada Marseyda Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxa uu soo eegay qaar ka mid ah goobaha ganacsiga gaar ahaan hoteelada iyo suuqyada magaalada Berbera halkaas oo shacabka Berbera ay mahadiyeen booqashada kaliska ee madaxweynuhu ugu yimi goobahoodii ay ku ganacsanayeen markii ugu horeysay madaxweyne Axmed Silaan uu soo kormeeray suuqyo ganacsi iyo waliba hoteelo ku yaala dalka waxaana taasi ka turjumaysaa nabadgelyada buuxda ee ku manaystay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida madaxweynuhu markasta maanka ugu hayo u helanaanta shacabkii u doortay hogaaminta wadankan أحمد ساكي داير عصانية عبد الله علي السودين تلفزيون كقرن كصوماليلاند مقالة هرقيسة